السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن مركلي فيديو عسو جنان كاد نقل سعتان وأمسين جنال أنو أمسين سودوادا ماني وناكسن هبين وناكسن صباح وناكسن ظهر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي وسودوادا أصحابتي اللي تجلسوا في سودوادا لما أنتي مسودوادا لما أنتي ودي تجعلها إن شاء الله بليز جينا كتاب عصفتين سبسكرايب لايك شير كومنت سحب اللي تقعدوا مسدها سبسكرايب تكوسي أنه لايك كريم وشير كريم لما أنتي ونسيتي لما أنتي ودي تجعلها إن شاء الله تكسون نقود ناكسن قودينا إذن سولابتي waa la kala mashquul waxa bini aadan leeyahay mashquul iska imaana soo markaa haddana dib idin soo laabtay gabadhiina soo laabatay sharax rajeynaa in like la dhici doontaan videogan aadna share gareyntaan meel ku gaarsiin doontaan dula yiraahdo waxaan wadaa mar kale barnaamij kale oo ila tali ah dula yiraahdo soo markaa insha Allah no bilaaba إن بدن وإيحيستين أنه وإذن حيسة وأسكود حيسنا يا ساعتين وإذن وذحيسة صبرك إن شاء الله وحده قدران كديجنا لكن هذا برنامج كان نصوص سمينا وقدم حب النساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واكو سلامي دمان فميلو مسلم وإذن السلامي ونكاو قادنا ولا مقعد وحليمة magacaygu waa xaliima waxaan ku noolahay diradhaba Itoobiya soo walaal xaliimo waxaan ahay hooyo dhiban waliba waxaan ahay gabar hooyo ah oo dhiban waliba nolosheeda ay martay marxalada aad u adag walibana ah meelaha nolosha ugu xun ayaan dhihi karaa xilliyada qaar waxaan go'aan ku gaaray in aan isdilo laakiin haddana ma aysan dhicinin waxaan rajeynaa in talo fiican aad isiin doontaan waxaan guursaday sanadii 2008 markaan guursaday 4 sano kadib waxaa 4 sano markii la qabay odagaygu wuxuu yiri maadaama aad tahay ma dhasho ma doonaynaa aanan dhalin inaan sii noolaado sida ay reerkiisa asigu culays ugu saaray sida ayaa lagu kala tagnay hal sano kadib ayaa haddana guursaday laakiin isla qisadii kale ayaa igu dhacday 2 sano markaan isqabnay waa kala tagnay haddana kama aanan quusan noloshii mar kale ayaan istijaabiyo oo guursaday markii kale aan istijaabiyo oo guursaday waxa igu dhacday waxyaabo la yaab leh oo noloshayda saameeyay waxa igu dhacday markii aan guursaday ninkii markaan wada joognay sanad iyo dhowr bilood waliba 2 sano oo wax yar dhiman ayay hooyadiis waxa ii soo bandhigtay 2 choice kaasoo ah in ay iga rabto inaan dhalo ilmo waliba in ilmahaas aan dhalay ay noqdaan ilmihii reerkaan dhaxli lahay walibana inaan magaca reerka kor u qaado haddii ay dhacdo inaan dhali waayana aniga aan odagayga u keenay gabar ilmo dhalayso aniga waxaas dhan way cuntami waayeen walibana waxay hooyadii igu soo xukuntay in 24 saac gurigan ka noqdo qadaama isla markii waxay tiri in noloshayda cuntami wayso wax kastan sameeyay laakiin caqabadaha ay haysto waxa kamid ahay bay tiri in aniga dhakhtar kasta aan tagoon isbaaro laakiin ninka i guursaday markii uu yiraahdo ma dhasha tahay asiga uusan isbaarin ninkasta aan yiraahdo isbaarna oo ugu yiraahdo isma baarayo ee gabadha aan waxba dhaleenin waa adiga sida ayaan markasta nafteedu waxa ku soo gaaray dhaawac waxaan gaaray dhibaatada iyo xanuunkii aan maray in xitaa aan hurdadii ka tago in aan hurdo habeen iyo maalin aanan hurdin in dhiigaygu uu noqdo low meesha ugu dambayso istaago noloshii dhan baa ii soo urtay wax kasta ayaa nacay waayo mar kasta ereyga ugu horeeya oo la yidhahay waxay tahay owlaad ma lihid adiga owlaadna rajo kama qabtid inaad dhashid saas daraadeed marka lama sheekaysan karo qofkii aan doono waayo markaad qof la sheekaysanaysid waxaa jira waxyaabo lagala hadlo kaasoo ah ilmahaygu waxaas cunaan waxaas ma cunaan ilmahaygu dharkaabuu xirtaa ilmahaygu waa caynkaa laakiin aniga intaba ma hayo markasta waxaan nafsadeedu ku canantaa sababta aan adduunka u imaaday waayo haddii joos la isiin lahay ma aanan imaadin adduunkan waayo laakiin qadarta rabbi ayaa sidaa noqotay ilaahay wuxuu ii qadar ayaana marayaa sida ayaana ninkii saddexaad haddana ku kala tagnay waayo wax aanan ka soo bixi karin iyo reerkiisu ugu xujeeyeen markii aan ninkii saddexaad kala tagnay waxaan ka soo tagay xaafadii aan deganaa aan diradhaba ka deganeen xaafad kale ayaanan soo degay xaafadii kale markii aan soo degay bay tiri xaafadii kale markii aan soo degay ayaan waxaan isbaranay haddana nin weyn oo weliba reer ciyaal leh
ciyaal aad u fara badan leh. markaan baa waxaan is iri odagan maadaama oday ilmo soo dhalo uu yahay markaan asigana isku tijaabi, asigana waan istijaabiyey laakiin wax natiijo ay iimaysa soo bixin. laakiin odagan wuxuu dadka hore kaga duwan waxay tahay waxa uu yiri qadarta waa meesheedii. qofka bini'aadankana owlaada asiga ma samaysto, owlaadana rabbi ayaa bixiyo. laakiin buu yiri naftaada u sheeg markasta in aad tahay boqorad, boqoraduna aanan loo rabin murugo. saas ayaana markasta nafsadeeda u ii dejin jiray. laakiin aniga ma aanan ahayn qof degays, waayo waxaan ahay qof dhaawacyo hore soo maray. markastana dadka marka ay sheekaysanayaan qalbiga ayaan ka ooyaa, anigoo dadka la fadhiya ayaa haddana gudaha aan ka ooyaa, weliba aan ooyaa ooyin aad u fara badan, laakiin aysan dadka hareerahayga fadhiya aysan maqlin oo qalbiga aan ka ooyo. waxay saas ahaataba ilaahay markasta waan tuugaa, waxaan badiyey soonkii, waxaan badiyey salaadii, markastan ilaahay ayaan u laabtaa oo wax kasta aan weydiistaa. waxaa dhacday in markii dambe uu yiri dhakhtar baan ku geynaya, dhakhtar arid sababa uu igeeyey, arid sababa markuu igeeyeyna isoo daaweeyey, dawadii markuu isoo siiyey, markii la isoo daawiyey arid sababa la igeeyo la isoo daawiyey uun soo laabtayna saas markaan imaadana ilaahay ugu irsaaqay owlaad inaan caloosheedii ku qaado, weliba muddo sanado ah kadib. waxa ila noqotay in la yiri waxaad galaysaa jannadii, waayo markii aan owlaada caloosheedii inaan ku qaado la ii sheegay jannada iyadoo liigu bishaaray ayay ila mid noqotay. waxaan waday dhowr bilood, 9 bilood kadib waan dhalay. laakiin alxamdulilah wuxuu ilaahay ugu irsaaqay 3 wiil oo mantaan ah. ilmahaygii waan dhalay, weliba waxaan u sameeyey fantasiyo laga yaabay. ilaahay ayaanan u laabtay, markastana sadaqadeeda waan sii waday. haddana xooga kadib haddana ilaahay owlaad kale ayaa caloosheeda geliyey, waxaanan ku dhalay 2 wiil oo mantaan ah. saas ayaan waxaan ku haystay 5 wiil alxamdulilah. laakiin waxaa jiro gabdho badan oo Soomaaliyeed oo dulmo, weliba ku dulmo guryaha iyo meel kasta oo geey Soomaaliya degan tahay. ma og tahay markii lagu yiraahdo waxaa tahay qof aan rajo ka qabin noloshaada inaad hooyo noqoto, xanuunka aad dareemaysid dadka afkooda way ka fududahay in ereygaas lagu dhaho, laakiin ereygaas waxyaabaha qaar aan ku fikiray xilliyada qaar. xitaa waxaan koray meel derbi ah oo aad uga fog dhulka, aan isku dayay xilliyada qaar inaan iska tuuro, laakiin haddana marka aan damca inaan istuuro waxaan soo xasuusanayay ilaahay inuu yahay qafuuru raxiim. saas ayaan derbiga markasta kaga soo degayay, waayo markasta ilaahay waxaan weydiisanay ilaahayo sabarkayga iiga dhig mid aan ku faa'iido oo ha igu qasarinin sabarka aan sabray. markasta ilaahay taas ayaan weydiistaa. ilaahayna ducadeeda yoomul ayaan uu ii aqbalay oo ilaahay wuxuu igu irsaaqay 5 wiil oo mantaan ah, 3 mantaan iyo 2 mantaan ah. alxamdulilah. waxaan rabaa in qisadeeda aad u bandhigto dhammaan Soomaaliya si ay ugu noqoto cimri qaadasho. weligaa qof bini'aadan ha ku caynin wax ilaahay keenay, waayo waxa markuu ilaahay keenay ilaahay saacadu doono ayuu kugu irsaaqayaa. laakiin wax markuu wax aadanahayo uu yahay waa wax easy ah. laakiin wax owlaad markii ay tagto oo ilaahay xaggiisa ka maqan, ogow qofnaha ku dulminin ereyga waxaa tahay bilaa owlaad, waayo ilaahay wuxuu awoodaa inuu adiga ilaahay kaa qaado. markasta qof kasta oo hooyo oo dareemaya xanuunkii aan 10 sano dareemayay, ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ka qaado xanuunkaas uu dareemayo, waayo ma jirto qalbi jab ka weyn marka ereygaas lagu yiraahdo. haddana xilliyada qaar waxaad ku qasban tahay inaad aqbashid xanuunada aad u fara badan dadkan aysan kula dareemin. aniga waan aqbalay, weliba 10 sano ayaan aqbalay xanuun aad iyo xanuunjinay, weliba dhaawac weyn ii geysanay. haddana ilaahay aqbalka aan aqbalay xanuunadaas iguma uusan qasaan. ilaahay wuxuu iga siiyey farxad waarta. dhammaantiin waxaa idin rajaynaa guul. asalaamu calaykum. calaykum salaam walaashay. horta waan ku faraxsanahay inuu ilaahay kugu arsaaqo owlaad. ilaahay waxaan kaaga rajaynaa in owlaadaada kaaga dhigay owlaad saalixa oo adduunya aakhira ku anfacda. intaas inka badan ilaahay waxaan ku weydiinaa inuu ku siiyo. tan kale waxaa tiri waxaan dareemay xanuun 10 sano ka badan. exactly way jirtaa gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo ku dhex dulman guryaheena. ma ahan qofka hadduusan owlaad lahayn owlaadin asiga samaysanaya, because maanta waxaa jira dad milyaneer ah oo caalamka oo dad badan oo caano milyaneer ah laakiin aanan haysanin. xilliyada qaarna ilaahay ka tuuga xitaa mid cagala ilaahay ka tuuga. soo marka haddii lacagtooda ay wax ku iibsan karaa waxay ku iibsan lahayn owlaad, laakiin
kuma iibsan karaan. waa awlaada waa mid kamida deeqaha rabbi uu bixiyo adoomadiisana ugu deeqo. way jirtaa in badan aan la kulmay weliba dad badan ee qisadaas ku dhacdo oo toos aan ula kulmo oo aan aqaano oo badan ay jirto. waxa kaliya aan markasta u sheego oon ku dhiirigeliyo oon ku waaniyo waxay tahay in ilaahay u laabtaan dadka hadalka ay dhahaa inaysan badhag u dhigin ee ka socdaanba. because maanta haddii aad dhahdid maxaa saas la yidhahay adigu unbaa waalanayma wallahi inaadan natiijo ka keenin. laakiin haddii rabbigu ku qalqay aad u laabatid ood ilaahay isku xirtid ood soonkaaga salaadaada istikfaartaada sadaqadaada aadisatid ilaahay yoomul ayaan wuu kugu guuleynaa sida abaayadanba hadda igu guuleysatay ducadeeda soonkeeda salaadeeda iyo sadaqadeeda. tan kale ma og tahay inuusan jirin qof bila awlaad ah laakiin wax kasta ay tahay qadar. ilaahay awlaadiis ilaahay yacni ummadiis wuxuu siiyaa qofku doono wiilal siiya qofku doono gabdhood siiya qofku doono isugu daraa qofku doono maba siiyo. because waa xigmad kamid ah xigmadaha ilaahay u qarsan aayadaha quraanka kamid ah. aayado quraan ayaa sheegaya yani ilaahay inuu qofku doonaan awlaad siiyo qofku doono isugu daro qofku doono wiil siiyo qofku doono gabdho siiyo qofna isugu daro. soo markaa taas macnaheedu waxay tahay inaad beeninaysid oo dhehaysid now aayadaas quraanka ma jiraan. haddii aad dhahdid yani qofkan bil awlaad aad tahay awlaadan ilaaha bixiyo ilaaha qaato ilaahana qofku doonto ku arsaaqo. alxamdulilah rabbilcaalamiin hadduu ilaahay awlaad ku siiyo ilaahay ku mahdi because ma jirto nimcad ka weyn nimcad ilaahay ku siiye hadiidaas hadiid ka weyn oo ah awlaad inuu ilaahay ku siiye. ilaahay waxaan weydiinaa qof kastoo muslina oo dhinacaas ka tabanaya culays fara badan inuu ilaahay ka qaado oo awlaad jirkiisa u soo goyo weliba awlaad saalixiin ah oonu ku ilooba murugooyinka iyo caqabadihii oo soo maraya sanado badan. way adag tahay markii lagu yiraahdo ergaas markii lagu dhaado wax xanuun badan tahay laakiin haddana xilliyada qaar waa inaad aqbashaa because ilaahay kuma dayacayo markasta horta waxaad xasuusnaataa waxay tahay in uusan ilaahay ku dayacaynin. waxa kaliya aan hubnan waxay tahay ilaahay inuusan na dayacaynin uusan maxaytood yacni dhibaato aanan la kulmaynin. laakiin haddana waxaan ay tahay qadar waxa markuu ilaahay qoray ee tahay maxaytood wax qoran oo markaad calooshooda ku jirto lagu qoro waxa aad noqonaysid inaad muslimnimo ku dhimanaysid inaad gaalnimo ku dhimanaysid inaad hooyo noqonaysid inaad aabbo noqonaysid inaadanba noqonayninba waxaas carwo waxa ilaahay qoray. marka waa inaad aqbalnaa oo maxaytood marxalad kasta oo ilaahay maxaytood nagu keenay waa inaan aqbalnaa. dadkana waa inay fahmaan xanuunka ee leedahay erayada qaar ee dadka dhahayaan. erey waxaa jiro afkaaga inaad ka dhahdid aada u fudud laakiin u noqonaya sabab in qof dhan bin aadana noloshiisa ay burburto sabab u noqonaya. soo marka afkaaga adigoo sabab u noqon karo qof bin aadan noloshiisa inaad dhisteed maxay tahay sababta aad ku dooranaysid inaad afkaaga uu sabab u noqdo inaad qof dhan oo bin aadan inaad noloshiisa ku burburisid. erayada qaar ee afka kasoo baxay ha laga fiirsado. erey waxaa jiro just adinka idla ah easy laakiin dad badan anaga naga mid ah oo maxay tahay bulshadeena kamid ah qalbiyadooda dhaawacaya in afka lagu qoslo ma cadaynayso qofka inuu faraxsan yahay. qofka inuu afka ka qoslo u dhool cadeey ma cadaynayso qofka inuu faraxsan yahay. laakiin muhiimadu waxay tahay qalbiga inuu ka faraxsan yahay. qofku marka aflaadan saa qalbi jabisad oo maxay tahay waxyaabo oo adiga private inay ka dhigto marka aflaad saa kusoo sheeka qaadid qofka qalbigiisa wuxuu dareemi kartaa adiga just waa faraxsan tahay waxaad ku faraxsan tahay laakiin qofka dhinacaaga fadhiyo kuma faraxsano. markasta ku xisaabtan dadka hareerahaada fadhiya in farxadda adiga haysatay aysan haysanin marxaladaha adiga aad ku sugan tahay marxalado ka hoose inay ku sugan yihiin. marka insha allahu aan u wada ducayno qof kasta oo ilaahay maxaytood uusan awlaad siinin in ilaahay awlaad saalixa oo baari oo caafimaad qabto inuu siiyo. qaybta community aan ugu ducayno qof kasta oo muslina in ilaahay awlaad caafimaad qabto jirkiisa kaga soo gooyo oonu ku ilaabo shidadii iyo xanuunkii iyo dhibaatada oo sanadaha soo maray. taasina ilaahay weydiisanaa. waxaan rajaynaynaa fiidiyowga idinku dheereeya dhammaantiinba insha allah janag subscribe ka iloobina inaad like garaysin ka iloobina inaad share garaysin ka iloobina. waxaa jira dad badan oo isoo qoray qaybta Facebook ayuu soo qoray noo soo sameeyeen isku diyaarinta ramadaankii waxaa ramadaan ay imaaday ilaahay caafimaad iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo noo soo sameey. soo marka insha allah soo sameynaa laakiin waxaa waaye waa mashquulka iska badan hooy haddii aad problemkaada shaqadooda iska badan tahay
marka haddana shaqeynayso waa iska problem kale soo marka insha allah waa idin soo sameyna video isku diyaarinta ramadaankii inta aan soo sameyn kara ma garanayo laakiin insha allahu muhiimaddu waxay tahay in aan idiin soo sameeyo isku diyaarinta ramadaanka weliba ramadaanka ka hor insha allahu waxaan rajeynaa in maalmaha soo socda idiin soo sameyn doono dhammaantiin waxaa idin rajeynaa kheyr iyo barako janalka dadka cusub ee imaada iska fiirsado iska baxan subscribe-ka like-ta sheerta dhammaantiin waxaa idin rajeynaa peace and love